soo dhawaada jaalayaal meel ka soo dunida daclay daafay aad ka joogtaan waxaan ogeyn maanta Axmed Madoobe inuu ka soo degay garoonka Kismaayo haddaba dawladda inta badan waxaan ogeyn in ay lahayd Axmed Madoobe ma imaan kara Kismaayo Axmed Madoobe kama dhoofi kara Kismaayo Axmed Madoobe Interpol ayaa soo qabanayso inta badan waxaan ogeyn Axmed Madoobe in ragga fil Soomaaliya wariyaasha lacagta ay ku qaataan ama lacagta ay ku siiso in ay propaganda badan ay ka gudbinayeen Axmed Madoobe ayaa ku xiran hotel ku yaala magaalada Nairobi iyo waxyaalo kale oo la mid ah inta badan baraha bulshada soo gudbinayeen haddaba jaalayaal marka hore muuqaalka halka sida tooskan ugu daawaneysaan waa channelka YouTube-ka ee Man Official haddii aad ku cusub tahay channelka waa channelkaadi ee subscribe dhaho si uu noqdo daawadaha koowaad oo muuqaal walba aan soo dhigno uu soo gaaro waa hagaag haddaba waxaan ogeyn Axmed Madoobe in uu safar dibadda ugu baxay magaalada Kismaayo waxa uu na gaaray Nairobi caasimada Kenya haddaba inta badan fil Soomaaliya waxaan ogeyn in ay propaganda fara badan ay ka gudbinayso Axmed Madoobe inta badan la lahaa Axmed Madoobe Kismaayo kama bixi karo Axmed Madoobe Interpol ayaa raadinayso Axmed Madoobe diyaarad qaada ma lahan Axmed Madoobe waxa uu xanuunsan xaalad caafimaad darro ay ku jiraan iyo waxyaalo la mid oo inta badan ay soo gudbinayeen fil Soomaaliya rag gacan saarka leh oo wali wariyaasha ah haddaba waxaan ogeyn Axmed Madoobe in uu waxa soo dhan uusan waxba lahayn agtiisa yani waxa uu jibiyay record u yaala fil Soomaaliya oo ahaa in uu Axmed Madoobe Kismaayo iduu ka duulay waliba diyaarad qaas ay qaaday oo Nairobi uu ku degay waxaan ogeyn Axmed Madoobe in uu Nairobi uu la kulmay inta badan xoga aan helino in Axmed Madoobe uu la kulmay qaar ka mid ah xukuumadda Kenya ama qaar ka mid ah sida wasiirka amniga ee Kenya iyo sidoo kale sida sirdoonka Kenya iyo sidoo kale in Axmed Madoobe uu la kulmay siyaasiyiinta qaar ee mucaaradka ee Soomaaliya sida Sheekh Shariif Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo sidoo kale rag fara badan oo mucaarad oo halkaas joogo Nairobi sidoo kale waxaan ogeyn Axmed Madoobe in uu la kulmay ganacsatada ka soo jeeda Jubbaland iyo inta badan in uu la kulmay dad kale oo aan halkan aan ka sheegin haddaba marka Axmed Madoobe markii uu tagay Kenya oo inta badan baraha bulshada ay qabsatay hotelka uu degan Axmed Madoobe oo liiri Axmed Madoobe ayaa ciidan Kenya ay duligtay ma ogdiin ba Kenya inay taa ogaadeen Kenya yani dawladda lagu sheegay oo Kenya inay taa ogaadeen ma ogdiin ba dadka aqliga u saaxiibka ah ama dadka aan aqliga garaadkooda wali aan korin ayaa raba mar kale inaa halkan tooska si toos ugu bayaaniyo haddaba Axmed Madoobe markii uu gaaray Nairobi oo maalmo fara badan oo hotelkiisa uu joogay uu dani uu tagay Kenya uu soo gutay intuusan soo gudan ka hor oo uu ku guda jiray ahwaashiisa ayaa propaganda fara badan laga soo gudbiyay propaganda fara badan ay baraha bulshada ay soo dhigeen dadka aqliga u saaxiibka ah ama dadka mangaabka ah oo fil Soomaaliya la shaqeeya haddaba Axmed Madoobe ma ogtahay daawada adiga muuqaalka daawanaysid in Axmed Madoobe uu soo gaaray magaalada Kismaayo ama magaalada Kismaayo uu soo gaaray waliba diyaarad qaas ah ay soo qaaday ay xukuumadda lahayd ay dulmiidkii lahaayeen Axmed Madoobe diyaaradda ma soo qaadayso Axmed Madoobe diyaaradda soo qaaday la iska rabaa landheer banaanka jiifo noqdo diyaarad qaas ah uu soo kireystay waliba diyaaradda dadka markii ay Axmed Madoobe ay soo dhaweeyeen diyaaradda dadkii gudaha u galay xilliyihiin tan diyaarad waa dhaaftay Axmed Madoobe yaa ku soo siiyay haddaba diyaarad qaas uu soo kireystay oo si toos ah ugu soo cagarigatay Kismaayo halkaasi Axmed Madoobe waxa lagu soo dhaweeyay si diiran waxa u kacay dadkii siyaasiyiinta ah waxa u kacay wasiiradii iyo xildhibaanadii ayaa u kacay oo si diiran u soo dhaweeyay bulshadii reer Kismaayo waxa si toos ah loogu geeyay ama loo galbiyay madaxtooyada fil Kismaayo haddaba Axmed Madoobe waxaan ogeyn fil Soomaaliya in ay inta badan hadii ahaan lahayd military fil Soomaaliya u adeegsatay
angoolka uga dhaliyay haddii ahaan lahayd xagga siyaasadda sidoo kale meeshii uu soo wada mariyay aan wada ogeyn axmed madoobe waxaan ogeyn in uu wax fara badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay isku dayday in ay ka ceeriso meesha ama ay ka buriso waa asaga wax kasta oo gooni iska qabanayo haddaba daawada mala socota axmed madoobe in uu qabsan rabo maalmaha soo socdo calay masaarkiisi haddaba siyaasiyiinta halkaas uu kala kulmay ama inta badan dadkii halkaas uu kala kulmay waxay rabaa inay soo gaaraan maalmaha soo socdo magaalada Kismaayo oo waliba calay masaarkiisa uu rabaa inuu halkaas uu ku qabsado haddaba waxa ognahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Cali Khayre Sheekh Shariif iyo sidoo kale rag lamid ah sidoo kale Dr. Saacid waxa ognahay inta badan in ay ka soo qayb gali doonaan xalfadaas ama ay ka soo qayb gali doonaan calay masaarkaas uu ku qabsado magaalada Kismaayo Axmed Madoobe haddaba Xasan Sheekh Maxamuudow horey Soomaali wuxuu u maamahday gacantii aagoon weysay waa la dhunkadaa aayarku xafladaas ama calay masaarkaas uu dhigan rabo Axmed Madoobe aayarku ka soo qayb gal waa qaldoomay qaladkina ka soo laabo oo ka toobadkeen haddaba waxaan ognahay in Jubbaland ay xayiran tahay qaar ka mid ah garoomadii sida Jubbada Hoose iyo sidoo kale gobolka Gedo haddaba dowladda kaliya waxay ka adag tahay dadka shacabka oo masaakiinta ah horey waxaan u maqli jiray aabow kan yareeyay kan weyn ana iska celinay oo hadda ay ka dhigan tahay in shacabka laga adag yahay in shacabka diyaaradahoodii la xayiray laakiin ninka la leeyahay diyaarada waa ka xanimnay suur rabo uu u damashaday suur rabo uu u aaday meesha uu rabo haddaba Axmed Madoobe ma ogtiin in haddii uu rabo in uu yaani dadka fara badan waxay lahaayeen Axmed Madoobe ma bixi karo war ma ogtahay hotel ku yaala Kismaayo oo Sheekh Axmed Madoobe soo cabay in ay la mid tahay in uu Nairobi tago in uu Dubai tago inuu meesha uu rabo uu tagi karo ma ogtiin haddaba marka waxaan ognahay gobolka Gedo in wabigii maray Jubba in fatahaadii ka dhacday bundooyinkii ay burbureen qaar ka mid ah gobolka Gedo haddaba ma dowlad wax u qabatay aragteen iska daa dowlad wax u qabatay gudoomiyaashii degmada ma ogtahay in degmo kasta oo gobolka Gedo in ay isku haystaan laba gudoomiye oo waliba ilma adeer ah oo waxaasi ay tahay wax ay ka shaqeysay filla Soomaaliya haddaba gobolka Gedo waxa ognahay maanta xaaladda uu ku sugan yahay sidoo kale waxa ognahay Kismaayo iyo Dobley inay diyaaradaha si toos ah u soo degayaan waay gobolka Gedo ka soo uray waa xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo Axmed Madoobe ay sahayaane ma shacabka gobolka Gedo ayuu ka adag yahay haddaba daawade adiga muuqaalka daawanaysid sidee u aragtaa in gobolka Gedo shacabkeedii diyaaradihii laga xanibay oo muddo bil iyo bar ah aysan ka soo degin gobolka Gedo haddaba ma la socotaa daawade in Axmed Madoobe maalmaha soo socdo ay uu ka dhigan rabo magaalada Kismaayo calay masaarkaas oo asaga 4 sano ay soo socoto ama 5 sano ay soo socoto uu hogaanka uu u siihin doono oo waliba ay ka soo qayb gali doonaan madax sare haddaba Xasan Sheekh Maxamuudow diyaaradii aad celineed ama diyaaradii aad ganaaxleed ayaa laga rabaa Landere waa ninkii Axmed Madoobe sababtoo ah wuxuu maalin cad uu Kismaayo inuu ka soo duulay wuxuu tagay Nairobi ka soo duulay uu magaalada Kismaayo imaad xawaashi u baxay wuxuu u baxana uu soo qabsaday haddaba ninka aan leeyihiin Interpol baa u socotay Interpol soo qob waxaas ba shaqadiisma wuxuu leeyahay war dowladda Soomaaliya amar hore meel saaray ciidankii aaway Axmed Madoobe waxna uu firxadkooda uu ka soo qabtay xuduudaha waxna uu markii dambe duus keenay Kismaayo aayarku ehelkooda qaraabadooda yiri arday aada Axmed Madoobe ma ogow ama warba uma hayo dowladdaas wuxuu leeyahay aniga calay masaarkeyga ayaa rabaa inaan qabsado waxa aan wato waa xukuumad iska yar hadii cid allaale cid isku dayda in ay aniga ay soo aadan cawaaqibta ay la kulmayso way dareemi kartaa haddaba dulmajidid inuu hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud aayarko Xasan Sheekh Maxamuud oo gacantii aagoon weysay waa la dhunkadaa horey Soomaaliya u maamaaday aayarko Axmed Madoobe iskaga imow xafladaas calay masaarkana ka soo qayb gal
oo waxa noqotaa ninkii hadii laba nin hadii isdagaalaan nin u baaraayo ama laba dhagax hadii isku dhacaan mid u baajo Soomaa waa laga raayay gogasha imo raali gelin bixi على مسار كسو قيب قال هذا بقولتي قبل دعوة هذه أنا لسعتي فضل مقالك ومقال كذي لايك تداس إلو ذي لايك تمرك لسار جانا كواجنا الكذي يوتيوب كان قد أقول إنه برتين يوتيوب كإيمان وفشيال أنت سأكسوك بجبيني يا